السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. وأولالكن محمود لاق كسو دوادا موضوع عن كو إيغينو باريس أي خبرادو كو ساميين سببتا كينتay in raggu yihiin kuwa ugu badan dhimashada markii la eego caabuqa COVID-19. Tani markii uu caabuqan COVID-19 ka dilaacay magaalada Wuhan ee ku taal waddanka Shiinaha, waxaa la arkayay in raggu ahaayeen kuwa ugu badan ee u soo rita caabuqan. bishii February, macluumaad uu bixiyay Shiinaha ayuu ku sheegay in caabuqan ku dhacay 44,632 ayna ku geeriyoodeen 2.8% raggii meesha 1.7% ay ku dhinteen dumarkii. Waxaa la ogyahay in caabuqyadii ka horreeyay COVID-19 sida Spanish flu oo dilaacay 1918, SARS oo dilaacay 2013 iyo MERS oo dilaacay 2012 ay sidoo kale ahaayeen kuwa geeridu ku badantay ragga. Balse su'aasha ayaa ah sabab. Khubaro baaray arrintan ayaa waxay sheegeen inay aasaas u tahay 3 arrimood. Midda koowaad, ragga oo leh caadooyin khatar ku ah nafsadooda. Sigaarka ayaa la xaqiijiyay inuu yahay midka ugu badan ee xaaladda cakira marka uu qofku cabo ku dhaco caabuqa COVID-19. Tusaale, ku dhawaad nus ragga Shiinuhu waxay leeyihiin caado sigaar cabis marka la barbar dhigo 3% oo dumarka Shiinaha oo leh caadadan. Sidoo kale, markuu caabuqan ku faafay dunida, waxaa la ogaaday in meel kasta oo caabuqani saameeyay ay raggu yihiin kuwa ku halaagsamay. Italy waxa uu leeyahay 10.6% oo dhimasho ragga marka la barbar dhigo 6% oo dumarka ah, halka 28% oo ragga iyo 19% oo dumar leeyihiin caado cabis sigaar. Waxaa sidaas oo kale ah waddanka Spain. Midda labaad, dadka da'da ee xanuunsan oo ku badan ragga. Xanuunada raaga ama loo yaqaan chronic ay ka mid yihiin sonkorta, sanbab xanuunka iyo kansarka ayaa ah kuwa khatar badan leh marka qofka qabo ku dhaco caabuqa COVID-19, kuwaas oo ku badan ragga da'da ah marka la barbar dhigo dumarka. Waxayna sabab u noqdaan ayay dhaheen khubaradu in raggu ku badnaadaan geerida dhanka caabuqa COVID-19. Midda saddexaad ee ugu muhiimsan ayaa ah dumarka oo leh 2X chromosome ama hiddo difaac. Koromosoomyada ayaa ah seelal ku dhex yaala xudunta, kuwaasoo qaada akhbaaraha la xiriira hiddaha, waxayna ka samaysan yihiin DNA iyo protein la isku daray, waxaana loo yaqaanaa chromatin. Waxaa jira 2 koromosoom, mid ka yimaada hooyada iyo mid ka yimaada aabbaha. Buug uu qoray sayntista Maraykan oo la yiraahdo Shalom Alim oo ciwaankiisu yahay The Better Half ayuu ku sheegay haddii uu jiro wax ka caawinaya difaaca dumarka inuu iska caabiyo COVID-19 ama caabuqa, wuxuu noqonayaa hiddaha nidaamya qaabdhiska difaaca ee ku dhex yaala X koromosoomka dumarka. Qof kasta hal X koromosoom wuxuu ka helaa dhanka hooyada, balse midka farqiga sameeya ayaa ah midka ka yimaada dhanka aabbaha, kaasoo ay dumarku ka helaan mid dheeri ah oo X ah, halka ragga ka helaan Y. Qoraagu waxa uu sheegay in X koromosoomka saayidka ay leeyihiin dumarku fursad u siiso inuu difaaca jirkooda sareeyo. Waxa kale oo yiri seel kasta oo dumarka jirkooda ku jira waxa uu leeyahay 2 jibaar koromosoomka ragga, taasoo ka dhigan inay leeyihiin 2 jibaar seelasha jirka difaaca. Waxa kale oo uu sheegay in mar kasta mid ama 2 X koromosoom ay heegan ugu jiraan difaaca jirka dumarka lana dagaalan infekshinka. Qoraaga oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yiri in X koromosoomka saayidka ay leeyihiin dumarku uu siiyo awood aragti oo dheeri ah, heerkeeduna sareeyo marka la barbar dhigo midka ragga. Sidoo kale wuxuu yiri waa arrin sabab u noqota inay dumarku yeeshaan cimri aan lahayn ragga. Inta ayaan ku soo gunaanadayaa mowduucii gaabnaa ee kaga hadlayay in raggu yihiin kuwa ugu badan ee uu saameynta u geysto caabuqa COVID-19 marka la barbar dhigo dhigooda dumarka. Waa walaalkiin Maxamuud Laaq oo idin leh inta aan ku kulmi doono mowduucyaha xiga hadduu Eebbaha awoodda la ogolaado. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.